السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu isla eegaynaa maanta waa maxay jacayl maxayse ka aaminsan yihiin Soomaalidu diintiisa maxay ka tiri dadkeenii hore awooyaashani ay yeesheen say ula dhaqmi jireen markay isku arkaan la'aanta ma noolaan karo la'aanta ma joogi karo la'aanta ma neefsan karo waa hadallo ka soo yidhi baryahan dambe dhalinyarada haddii isagoo sakunta la yahay kule ma neefsan karo waa beentii oo cad haddaba jacaylka waxaynu u qaybinaynaa labo jacayl ka horeeya guurka oo ah marka saalaysu isha la soo qacsiyo iyo mid ka dambeeya guurka oo kadib marka la isla aqalgalo yimaada haddaba sidii caadada inoo ahayd inaga Soomaali ahaan guurka ka dambeeya jacaylku waa kii caadada inoo ahaa ee awooyaasheen ay soo sameyn jireen waayo inanta mar qulun baa aabaheed ku oran jiray inuu geel ku arkay iyo xoolo aaba ninkaasaan ku siiyey ee shar iyo khayr kala dooro yacni habaan iyo duca kala dooro inantuna markiiba way aqbali dhaweyd oo aabaheed way maqli jirtay iyadoo ninkaana ku qanacsan haddaba labada qaybood aan guurka u sameynay waxa weeye waa mid guurka ka horeeya iyo mid ka dambeeya labaduna way saxan yihiin haddii sidoo loo adeegsado oo aan lagu sameyn wax quluwiya haddaba jacaylka guurka ka horeeya wuu jiraa haddii sidiisa loo adeegsado maalin maalmaha ka mid ah ayay gabadh u timi Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo saxaabi la fadhiyo waxay tiri Nabi Allah diyaar baan ku hay ee guurso dabadna nabigu intuu kor u eegay ayuu ku qanci waayay waanu iska daayay oo uu foorarsaday haddaba haddaan iska eegi lahayn waxa la oran lahaa Nabi Allah ha eegin ee markiiba guurso sababta wuxuu doonayay inuu ku qanco kaana waxa la oran karaa waa jacayl oo qofka ilaa aad iska eegtid oo aad isku qanacdaan ma guursan karaysid saxaabi kale la fadhiyay ayaa gabadhii ka helay markuu saa u eegay waxaanu yiri Nabi Allah gabadhan aan guursado ee ii guuri dabadna nabigu wuxuu ku yiri waxaan tiya ma haysataa waxaanu ku yiri wallahi 500 ma haysto haddaba saxaabigaas waxaan u maleynayaa inuu ka mid ahaa asxaabu sufada yacni asxaabtan waxba haysan ee masaajidka cuntada lagu keeno dabadna wuxuu ku yiri dhowr shay buu weydiiyey waxaanu yiri ma hayo aakhirkan wuxuu ku yiri dhowr suuradood bar sidii baanu ku baray oo ku guursaday haddaba ka waxa la oran karaa waa jacayl sababtoo saxaabigaas markuu saa weegay ee uu ku qancay ayuu gabadha guursaday haddaba waa inaan kala saarnaa dhaqan dad leeyihiin iyo diinta way dhaqanka dadku leeyihiin qaarna way xumaan karaan qaarna way wanaagsanaan karaan haddaba marka leen leenahay gabadha yeenin u bixin oo meelaha ugu tagin oo kula cashayn yacni maaha macnaheeda saxda ah inaanay is arkin oo aanay iliya baalba iska qaadin walaalkayow ama walaashayay qofku marka hore furiinka sida loo neceb yahay waayo furiinku waxa weeye xalaasha Ilaahay agtiisa loogu neceb yahay ayaana loo neceb yahay qofkaan arag ama aanu ku qancin inuu guursado haddaba maanta waxa soo baxay aalada casriya oo qofku isagoon qofkaba u tagin uu la socon karo sawirna ay u soo diri karto isna uu diri karo oo ay barta ku kala dhamaysan karaan iyagoo aan wax isla hadala ama hadal kale oo sameyn haddaba inagoo ka hadlayna in labada qof ay isku qancaan ama labada lamaane ka hor guurka ayaa maalin saxaabi u yimi nabiga saxaabiga waxa la oran jiray Mughira ayaa waxa uu ku yiri nabiga Nabi Allah waxaan doonayaa inaan guursado dabna wuxuu ku yiri nabigu gabadha ma heshay ama ma soo aragteen oo ma soo aragtay dabna wuxuu ku yiri Nabi Allah ma aan soo arag dabna wuxuu ku yiri orod oo soo eeg فإنه أن يجدر بينهما عرب الله فإنه أن يجدر بينهما وحلا يابا إن دحدين أي تمادو محبه يجعل يعني وين اسكو قنعدان marka hore qofka ka hor inteedin iskuursan way hadhow waxa dhici karta in idin isku qarcin oo meesha lagu kala yaaco haddaba guurka dhalinyaro badan la weydiiyay midba si uga falceliyay ama uga jawaabay inan baa tiri waa jiriya jeeb walaalkayagu yani hadduu ninka jeeb hayo anna jiri waanu hayaa mid baa yiri waaba been oo maba jiro mid kale yiri waa nolol oo la'aantiin lama noolaan karo haddaba waxa soo jawaabood oo ay bixiyaan dhalinyarada waxaan kaga kalsoonaan karnaa aayadda ama quraanka Ilaahay iyo axaadiista ee yiri diintu dumarka waxay dhigtay muhibbo iyo jacaylkuna wixii si muhiimsan yahay markay labada qof isqabaan ee ay guriga wada joogaan sababtoo ah markaas isaga baahi badan yihiin inay isjeclaadaan ay wax wada qabtaan sababta waxa taala hawlihii guriga iyo imtixaan oo dhan haddaba waxaan kula talin lahaa walaalahay iska dhaafa jacayl Shahrukh Khanka
ee jacaylka dhabtaa matala oo maalinta inanku shubasho waayo inanta ha ugu shubto maalinta inanta weydana inanka ha ugu shubo yacni dhibtiyo dheeftaba yacni dhibta ha la wada qaybsado si hadhow marka la isguursadana dheefta loo wada qaybsado haddaba haddaynu shay kasta sidiisa u waajahno oo aynu sidiisa u aqbalno yacni sida ugu wanaagsan aynu u qaadanno waxbay nagama xumaanayaan oo wax kasta waynoo hagaagayaan laakiin shay kasta si xun baynu u qaadanaynaa shayo badan baynu khaladnay markaa jacaylka waxaynu odhan karnaa tacriifkiisa waa isu hilow iyo isu xiisid isdoonid laba qof oo kala jinsiya oo doonaya inay nolosha meel kaga biiraan ayna dhalaan carruur diinta u gargaarta oo haliyeeye ah maanta haddii laygu odhan lahaa walaalaha wax ku caawi ama wax ku tar waxaan ku tari lahaa walaaladayow wax kastoo idin qabsada diinta ka baadha waayo diinteennu wax kasta way koobtay oo waxba kamay tegin haddaba waxaad ogaataa shay kasta weligii ha soo wareegay inuu aakhirka iman doono xaqiiqada ka dhig jacaylkaaga mid ku dhisan xaqiiqo siduu ugu dhammaado xaqiiqo dhammaanteen xaqa waan ognahay laakiin marka hore waynu iska indhatirnaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu xaqiyo sida saxdaa uu ina waafajiyo haddaba shay kasta bog dadban iyo bog daahiro leh shay kastan ogow xaqiiqadooda barnaamijkana u sheergaree qof ad is leedahay wuu anfacayaa mahadsanid wassalaamu calaykum